waxaan rabaa inaan ku bilaabo hadalkayga siyaasadda xukuumadda dhexe ee ku abaaran guud ahaan gobolka Banaadir gaar ahaan waxbarashada iyo adeega bulshada ee gobolka Banaadir dastuurkan qabyada markii la qoray oo dhamaaday muxuu ahaa 825 ergo ay ansixiyeen waxa ku tiilay in gobolka Banaadir maqaamkiisa la cadeyn doono haddii sida uu hadda markaa hal cadeyn leeyahay sidoo hadda yahu ahaa marka waa inay baahi jirtay dastuurka uusan ku qanacsanayn sida hadda uu yahay marka shacabka Banaadir horta waa inay ku qanacsanaadaan xuquuq dastuuri inay u leeyihiin in statuska hadda jiro oo isbedel waa in lagu qancaa maxay dastuurka waxa la qoray statuska hadda jiro oo jiro wuxuuna dastuurku yiri waxaan ahayn waa in la sameeyaa marka horta sidaan ma ahaan karno dabcan gadaalna uma noqon karo meesha kaliya meeshaas laga aadi kara aqliga saliimka wuxuu sheegay inuu yahay mar haddii magaaladan ay tahay yaani rubac hadduu ka badnayn dadka Soomaaliya oo dhan inay halkan ku nool yihiin meesha kaliya laga aadi karo waa inay maamul goboleed noqotaa dalkuna federaal hadduu yahay dadkii intooda badan halkan degan yihiin gadaalna aan loo noqon karin meesha la joogana la joogi karin aqliga wuxuu sheegayaa in hore loo socdo halka meel oo loo soco karo oo qof kasto siyaasi qof kasto wax maamulay oo fahmi karo waa in laga aadaa maamul goboleed aadadaas laga aadayo dawladda dhexe ugama maarmayso in gacan ay ka geystaan shacabka gobolka Banaadir xaqiijinta meesha laga aadayo meeshaas shacabkaasna ilaahay wuxuu u dooray gudoomiyaha ahna duqa magaalada inuu hogaamiyo processkaas oo meel marsiyo waxaan hubaa inuu meel marsiin doono haddaba intaan ka soo galeena annaga daan wasaaradda waxbarashada nahay maxay tahay siyaasadda waxbarashada ee ku abaaran gobolka Banaadir waxaan rabaa inaan qeexo in wasaaradda waxbarashada ay ka go'an tahay sida ugu dhaqsaha badan ugu xanuunka yar culayska ugu yar saari karo gobolka inaan waxbarashada gobolka ku soo wareejino gobolka